Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka baro ICT IT. Insha Allah hore ayaan ugaleynaa casharadani. Waa tii aan baranay xalay GB edit wax loo yaqaano ama GB edit. Maadaama uu ku baxayo luqadda finishka inta badan barnaamijka inta badan oo finish ahaa oo aan ku fasiraynay luqadda Englishka iyo luqadda Soomaaliga. Hadda asoo English ayaan geli doonaa ardayda Soomaali meel kasta ay joogaan si ay ugu faa'iidaystaan. Hadduu yiraahdo serverka ayaa halkan noo kacsan saad u jeedaan. Stepskii aan marnay horay ayaan mari doonaa hadduu yiraahdo. Watii aan GB edit halkan ku qoraynay MSC GB edit MSC halkaas ku qoraynaa. Waxaa inoo soo bixi doono local group policy editorka. Marka haddii aad xasuustaan stepskii aan maraynay xagga finishka waxaan finishka ku qornaayeen ilaa kulli. Marka hadda waa English saad u jeedaan. Windows setting ayaan gelaynaa ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan geli doonaa security settings halkaas ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna waxaa kusoo baxayo meelo badan aan wax ka bedeli doono laakiin hadda waxaan naqusay haddaan baran doono waa account policy ayaan geli doonaa. Casharkeena ku saabsan yahay si passwordka iyo wixii aan u bedelno. Local policy ayaan geli doonaa firewall way badan yihiin security waxaan waa security oo qofka administratorka loo baahan yahay inuu maamulo. Marka waan baran doonaa. Password policy ayaan gelaynaa hadaa xasuustaan. Kadibna waxaa inoo soo baxayo intaas waa tii aan sharxaynay. Qofkan passwordkiisa meequu xasuusnaan karaa. Wuxuu xasuusnaan karaa 24 saac aan u dayno. Halkan waxaan ka dhigi karnaa 300 oo maalmood aan siino inuu passwordkan jiri karo uu ku shaqayn karo qofka kadibna uu soo weydiisan doono help desk ama administratorka ama sanad ama 2 bilood ama 6 bilood wixii aad rabtid macnaha. Kan waxa waaye age-ka uu maximum password age-ka macnaha uu markii uu ka qaldamo ama passwordka uu inta uu jiri karo hal maalin kadib in haddana loo bedeli karo. Sidoo kale maximum password length meequu dhirir ahaan meeqa uu ka koobnaan karaa 8 ama 11 7 inta badan 8 aa la isticmaalaa ama 7 aan ka dhigno. Halkan complex requirements-ka waxaa loola jeedaa macnaha in aad xarfo iyo disable hadduu ku yahay enable inaad ka dhigtid in xarfo iyo numberska iyo calaamadaha kulli iyo waxaas dhan inay passwordka ka muuqdaan si password adag uu noqdo. Kana enable ayaan ka dhigaynaa. Marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay. Dabcan share garay la wadaag ardayda kale iyo subscribe saar si aad casharada dambe ula socoto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.